السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعبد الناصر أو سيدي عادة إنه أهيد ما أنتنا يديسو قدون دونا برنامج كمدا برنامج يديني تحنها عين بعينك أي نكجهد لترني أنت بدن أرمها بالشدة أي نكجهد لترني ما أنت برنامج كأنه وكدوين هي برنامج يدي هراء أرمها بالشدة إن شاء الله تعالى waxaan jecelahay maanta in aynu barnaamijkeena liishaanka ku saari doono kagana hadli doono isbarbardhigga gabayga Soomaaliga iyo shicirka Carbeed labada qaybood baan maanta aan doonayaa insha Allah bal in aynu ku sameeyno isbarbardhig si aynu u fahmi karno in suugaanta dadyowga kale ee dunidu gaar ahaan sida suugaanta Carbeed oo ah suugaan aad u heer sareysa Soomaaliduna aanay ka laalaadin oo aynu nahay cidda kaliya ee ku soo dhow ama ku soo xigta suugaanta Carabta waxaynu arki doonaa insha Allah taala waxyaabo fara badan oo ay ka gabiyeen Carabtu waxa weeye Soomaaliduna wax badan oo ay Carabi ka gabayday ama ay ka heestay ama ay ka maansootay ayay Soomaaliduna sidoo kale ka maansoodeen kana gabiyeen kana heeseen oo waxyaabo fara badan oo ku saabsan xagga dhaqanka ayaynu wadaagnaa Carabta waxa kamida matalan xilliyadii hore Soomaalidu saddex shay bay ku dagaalami jirtay gabdhaha geela iyo gamaanka saddexdaas bay Soomaaliya isku dili jirtay oo la kala qaadi jiray oo la kala dhici jiray oo laba beelood isugu baabi'i jireen oo laba qabiile isu leen jireen oo waxa weeye la isugu awood sheegan jiray Carabtuna sidaas oo kale ah Soomaalidu waxay ahaayeen waa dad xoolaha nool aad u jecel gaar ahaan geela Soomaalidu aad bay u jeclayd Carabtuna sidaas oo kale iyaguna safiinatu saxraa baaba yiraahdeenoo waa doontii saxaraha lagaga talaabayo cagma saflahaasi aad bay iyaguna u jeclaayeen bal marka ayaan ku talax tagine waxaan jecelahay maanta inaynu isbarbar dhigno shicirka Carabiga ah iyo gabayga af Soomaaliga ah ama aynu isbarbar dhigno laba gabay oo midna yahay af Carabi midna uu yahay ama laba beyd aan iraahdo oo uu midna yahay af Carabi midna uu yahay af Soomaali iyo sida ay isu buuxinayaan ayaynu insha Allah taala bal aynu eegi doonaa maanta aan soo qaata beydka ugu horeeya waxa iska lahaa shaacirkii caanka ahaa indhaha la'aa Carbeed la oran jiray magaciisa Abul Ataahiya qaar waa la garanayaa beydadkooda laakiin bal kuwii aynu magacooda garanaa u baan tilmaami doonaa shaacirka la yiraahdaa Abul Ataahiya ayaa wuxuu yiri ala layta ash-shabab ya'udu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashib ala layta ash-shabab ya'udu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashib shabaabnimadii hore shiraaqatay waa horaan hadday soo noqon lahayd u sheegi lahaa ciradu sidii ay noo gashiyo wixii ay nagu fashay beydka hore af Carabi buu ahaa beydkan labaadna waxa weeye waa af Soomaali gabaygan af Soomaaliga ah iyo beydka gabayga ah ee af Carabiga ah way ismacnaynayaan waa isku macne kana waa Carabigun kana waa af Soomaaligun waa la isbarbar dhigi karaa labada beyd beydka labaad ee aan maanta jecelahay in aan soo qaato ama aynu halka kan ku wadaagnaa waxa weeye isaguna beydka la yiraahdo magaciisa idha ra'ayta nuyuba al-layth barizatan fala tadhunanna anna al-layth yabtasimu إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم معيها اللباح كوقا ويود الغدي سفريها وقاضا قصر معيها اللباح كوقا ويود الغدي سفريها وقاضا قصر لبدا بيت مدينة عربي مدينة أف صومالي سيدا كا أف صومالي آدو فهمتي ومعنيه سيهي marka af Carabi laga dhigo beydka af Carabiga ah baa la macno noqonaya kan Soomaaliga ah ee aan sheegay bal waxa aynu arki doonaa isagana
waxaynu arki doonaa beyd ka mida ayaynu arki doonaa ama waxaynu arki doonaa shicir ka mida shicirada ugu layaabka badan ee ku saabsan xorriyadda. shicirkaasi waxa iska lahaa shaacirkii caanka ahaa ee carbeed ee tuunisiga ahaa ee la odhan jiray magaciisa abuqaasim al-shaabi. waxaa la odhan jiray magaciisa abuqaasim al-shaabi ayaa la odhan jiray magaciisa. wuxuu ahaa gabaygu wuxuu leeyahay ida ashacabu yowman araada alxayaa falaa budda an yastajiiba alqadar walaa budda lilleyli an yanjali walaa budda lilqaydi an yankasir waman lam yucaaniqhu shawqu alxayaati tabakhara min jawiha wandathar faweylun liman lam tashuqhu alxayaatu min safcati alcadami almuntasir. intaasi waa beydadkii shicirka af carabiga ahaa ee uu lahaa shaacirkaa weyn ee magaciisa la yidhaahdo abuqaasim al-shaabi oo ahaa shaacir tuunisiya. beydkii intaa markaynu af soomaali ku sheegno wuxuu yidhi shacabka nolol doonayee adduunyada weli ku dhaqan meertada socotuu fahmaa micnaha qadarkuu qiraa markuu gudcur soo dhacaba caddaa soo daba marto culayskii madowgu dhalay cirkaasay ula baxdaa caadkiibay suulisaa waxay ka dhigtaa caddaan darbaa ciil iyo ku nool ciqaab iyo caga juglayn intaana cataabayo nolosha caynkeedii go'ay. markaad isu eegto ama aad isbarbar dhigto kan iyo kan ka soomaaliga iyo ka carabiga halkay carabtu sidaa ka tidhi soomaalidiina sidan ay ka tidhi. labadii beyd ama tudicii soomaaliga ahaa iyo beydadkii af carabiga ahaana waxay noqonayaan macnahoodii wax isu miisaaman oo isu dheeli tiran oo la isku macnayn kara ayay noqonayaan. waxaan ku xigsiinayaa waxaa jira beyd ka mida shicirka carabta oo ay yidhaahdaan waa beytu shicrin shahiir min ashaytaan. waa beyd shicira oo af carabiya oo caana oo laakiin waxay tidhaahdaa carabtu beydkaa cid tirisay lama garanayo shaydaankaa laga dhaxlay. oo waa maxay? waqabru xarbin bimakaani qafrin walaysa qurba qabri xarbin qabrun waqabru xarbin bimakaani qafrin walaysa qurba qabri xarbin qabrun. dhinaca kale marka laga eegana waxaa loo isticmaalaa carab jalqinta diingod galgod gore galgorigod galgod diingal diingod galgod gore galgorigod galgod diingal. erayada loo isticmaalo carab jalqinta in carabka lagu jalciyo ayaa kuwaana wuu noqonaya. marka beydkaa laga dhaxlay shaydaanka ay carabtu yidhaahdeen shaydaan baa laga dhaxlay ee kule waqabru xarbin bimakaani qafrin walaysa qurba qabri xarbin qabrun. soomaaligiina wuxuu yidhi qabriga xarbi baa ku yaal qarfiyo meel abaarahoo qubuuraha kale ka dheer. qabriga xarbi baa ku yaal qarfiyo meel abaarahoo qubuuraha kale ka dheer. yacni markaad isu eegto waa labada beyd kan soomaaligii siduu yahay macnihiisu iyaad u fahantay macnaha kaa carabigiina intan unbuu la mid yahay. marka kaaf carabigaa la macneeyo intan unbuu isagana macnihiisu uu noqonayaa. bal markaa kaasina waa kaa. waxaan ku xigsiin doonaa beyd kalean ku xigsiin doonaa oo ka mida waxaan ku xigsiin doonaa beyd kale oo ka mida beydadka shicirka af carabiga ah. matalan waxaynu soo qaadan karnaa laysa alyatiimu aladii maata waaliduhu ina alyatiima yatiimu alcilmi waaladabi. laysa alyatiimu aladii maata waaliduhu ina alyatiima yatiimu alcilmi waaladabi. ninka aabbihii go'ay godka iilka lagu riday agoon maaha kaasiya ninka aan cilmiga baran ninka aan cilmiga dhigan suugaanta daalacan kaasaa agoon ah.
labadaas beedna waxaad moodaa inay iyaguna isku fadhiisanayaan insha allah maanta isbarbardhigga shicirka carabiga iyo soomaaligana halkaa intaasaan kusoo koobi doonaa waynu wadi doonaa barnaamijka waxaan idiin hayaa ilaa 70 shicir oo shicirada ama beydadka gaagaaban ee carabta ah iyo kuwii aan dul dhigay anigu ee soomaaliga ahaa waan idiin soo gudbin doonaa insha allahu tacaala nala socda barnaamijka subscribe like and share inoo wada saara si uu dhammaan inta kale u wada gaadho wixii fariina commentiga noogu reeba wixii tala iyo tusaale ah halkaa nagala soo xidhiidha aad iyo aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu